hal sana ah oo aan shaqeynay dad baa waxay caadaysteen ama reer faraad ha ahaadeen ama reer gudaha ha ahaadeen inay maamulka koonfur galbeed habeen iyo maalin ay been ka sheegaan oo ayagoonan arkin oonan imaanin wuxuusan maamulka ahayn ay sheegaan baydhaba xasuuq ka dhacay xasuuqa micnihiisaanan la fahmin baydhaba dad lagu dhameeyey koonfur galbeed baa saas u yeelay wax ay caadaysteen yahay oo aan laga xishoonayn waxaa u badan dadka siyaasiyiinta ujeedada ugu weyn oo laga leeyahay markaa weydiisidoo la sheekaysatay xisbiyada mucaaradka ah waay markay shir isugu yimaadaan waxaad ka sheekaysanayeen waxa ay sheegayaan ugu badan waxaa waaye dowladdan ula jeednaa adinka maaha war annaga baad naysatay maxay dowladda ula jeedaa dowlad maxay noo dhintaa annaga wax dhibahoon qabna male annagaa isku tashanay annagaa isxallinay annagaa heshiisa maxaa adiga shahaada zuur u noqonaysaa oo been nooga sheegaysaa oo waxaanan qabin u sheegaysaa oo habeenii maalin dad aan naga dhimanin nooga dilaysaa oo masiibo noogu shiraadinaysaa soo nin damiir lama tiid soo nin siyaasadda rajo ka leh soo ma tiid soo nin muslim ah soo ma tiid soo nin xishoonayo ma tiid waxaan soo ma ogi in laguu qoraayo oo taariikhda ay kuu gelayso soo ma ogi in aakhiro lagu qorayo ilaahay kugula xisaabtamayo intee ku dhintay la dil yira waxaan rabnaa beenta aan raadka lahayn ee la caadaystay ee dadka siyaasiyiinta sheeganayo oo xamar jooga ay u bateen habeen iyo maalin ay dadka reer koonfur galbeed ugu dulqaadanayaan ay sheeganayaan nama qabato mana ka aqbalayno intaan ka badan uguma dulqaadanayno hanaga raalli ahaadeen waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego intii aan xilkayno inta joogno waa ogeydeen maalin maalmaha ka mida ma rabo inaan aada ugu dheeraado 11 qof oo dad reer koonfur galbeeda yaa hal subax nin inta la soo kacay baa waxaa lagu laayay gaalkacyo xasuuqkaas si weyn maa jirin weligii wax sheegaayo ma maqasheen dadki sheegaayo oo baydhaba lasma xasuuqay leh meesha xasuuq uu ka dhacay dadki ka yimid waay kii asagaa ma sheegaayaan kala xishoonayaan annagii baa xishoonayna nala xasuuqay hal subax yaa dad masaakiina oo reer koonfur galbeeda oo beer shinni ah ka shaqaynhaya oo 4 qof oo dhalinyaro ah xoogooda sabcanayo iyo inta loo soo dheelmaday baa la xasuuqay la dilay weligii wax sheegaayo ma aragteen haddana kuwii yeelay baa waxay leeyihiin waxaa la xasuuqay baydhaba xasuuq ka dhacay weligoodna baydhaba maysan arkin waxaan rabnaa marka annaga wixii xunta xaawo saar waayo wixii xun xaawo saara la yidhaaha wax walba oo xun waxaa la rabaa in annaga nala saaro naloo sheego annagana aan dhegaysano dadka reer koonfur galbeed ninkii raba maanta koonfur galbeed horey u socotaa horumar bay gaartay way midaysan tahay way isla jirtaa way isla socotaa way isku tashatay way tashatay waxayna rajaynaysaa guul maantana waa arkaysaa meeshay marayso koonfur galbeed ku dayay maraysaa maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo hadal xalay toole uu ka soo yeeray cabdicasiis laftagareen runtii hadalkaasi wuxuu nala noqday hadal yani cajiib ah oo aada iyo aada u yaab badan maxaa yeelay cabdicasiis waxa uu rabaa laba dhacdo aan isku mid ahayn in uu yani uu isla mid dhigo sababtoo ah dhacdada ka dhacday koonfur galbeed xasuuqa ahayd waxay ahayd xasuuq lagu laayay maati 16 qofood ah iyo intaasoo dhaawaca xasuuqa baydhabo ka dhacay waxaa waaye xasuuq siyaasadeed xasuuq loo adeegsaday awood dowladeed ayaa ka dhacay magaalada baydhabo xasuuqa baydhabo ka dhacay waa xasuuq siyaasadeed oo loo adeegsaday awood dowladeed iyadoo ay fuliyeen xasuuqaasi ciidamo ka tirsan dowladda iyo ciidamo etoobiyaan ah sida baraha bulshada aad ku wada aragteenbo marka waxaa yaab ah cabdicasiis isagoon weligiis ka hadlin xasuuqii baydhabo ka dhacay raba inuu yani ceryaamo isku qariyo
ama yani dadka yani reer koonfur galbeed in uu yani focuskooda u jeediyo meel kale uu u sameeyo marin habaabin ayuu wuxuu xalay toola soo qaatay in yani dad u dhashay koonfur galbeed lagu xasuuqay gaalkacyo. okay waa run waa dhacday waa dhacday oo dhab waaye gaalkacyo in dad lagu xasuuqay waa dhacda dhab oo dhacday balse cabdicaziiz dhacdada gaalkacyo shalay iyo daraad ma dhicin waxay saan u malaynaya waxay ahayd bishii March cabdicaziiz intaas muxuu ugu hadli waayay cabdicaziiz intaas muxuu ugu hadli waayay ilaa dhacdada gaalkacyo ka dhacday shalay iyo daraad midna ma ahayn cabdicaziiz muxuu uga hadli waayay isagaa sheeganaya inuu yahay madaxweynihii koonfur galbeed muxuu uga hadli waayay haddii hadalkii xalay toole uu ku hadlay uusan ahayn hadal farmaajo u soo dhiibay uusan ahayn muxuu markaa u hadli waayey oo u dhihi waayey gaalkacyo dad baa lagu xasuuqay muxuu u dhihi waayey muxuu statement u soo saari waayey muxuu u dacwoon waayey muxuu u hadli waayey cabdicaziiz haddii mataqaanaa uu damiir iyo damqasho leeyahay maanta markii farmaajo uu ku soo yani arintii yani xasuuqii baydhabo oo golaha ammaanka ay ka soo saareen mataqaanaa baaritaankii golaha ammaanka markii uu soo baxay miyaa farmaajo la soo hadlay oo dhahay adna waxaad tidhaahdaa xasuuqa ka dhacay gaalkacyo laba dhacdo oo la isku qarin kara ma ahan cabdicaziiz xasuuqa baydhabo ka dhacay hortaadu ahaa ayuu ku dhacay iyadoo lagu kufsanayo kursigii hoggaanka koonfur galbeed iyadoo lagu kufsanayo ayuu xasuuqaasi dhacay adiga sababtaadu u dhacay musharaxii kula tartamayeen muqtaarow adiga daraada ayaa loo soo afduubay haddaba waxa waaye walaalow daraada waxaad tiri adigoo hadlayo codkaagaan haynaa nin ka mid ah nin yani rayid ah ayaa waxaa loo dilay nin askari ah u dilay wax ka yar $1 adiga afkaaga ka sheegaya haddaba waxa waaye ummad haddii yani hoggaankeedii uu noqdo la keensada uu yahay adeega haddii uu noqdo hoggaankeeda ummadda meel walbaa lagu dilaa si walbaana loo dilaa adiga u sabab ah ummaddan hoggaanay u baahan tahay nin yahow la soo adeegsaday ee la keensaday adeegaha ah ummadda adigaa baday wax walba oo ku dhaco ummaddan adaa u horseeday marka waxaan ku leeyahay dhacdada ka dhacday gaalkacyo iyo tan baydhabo isku mid ma ahan sababtoo ah xasuuqa ka dhacay baydhabo waa xasuuq siyaasadeed oo awood dowladeed loo adeegsaday tanse ka dhacday gaalkacyo waa dhacdo meel walba ka dhacdo waa dhacdo mataqaanaa mooryaaneed oo ka dhacda meel walba ka dhacda waaye teeda kale malaaqyadii iyo waxaa tegey xildhibaanadii koonfur galbeed ka soo jeeday iyo malaaqyadoodii ayaa gaalkacyo tegey adiga weligaa kama aadan hadlin waxaad sugaysay amar farmaajo ayaad ka sugaysay ilaa uu kaa dhaho hadal xalay toole ayaad coroday oo aad hadashay hadalkii aad hadashayne waxa uu noqday hadal yani ujeedadiisu tahay in aad dadka ku kicisid aad tiraahdid gaalkacyaa idinku xasuuqay aad ka jeedisid indhahooda dadka waxa adiga hoostaada lagu xasuuqaayo aad ka jeedisid ayaad ugu talagashay taas ummadda yani waa ka baraarugsan tahay wayna ka dharagsan tahay lagaa yeeli maayo marka walaalo maxan adiga baba ku haysanaba cabdicaziiz LAFTAGAREEN adiga kuma haysana annaga adiga waxaad tahay nin la keensadayna annaga ma haysano annaga waxaan haysanaa ninkii adiga ku keensaday ee xilka ku kufsaday kursiga ee haddana shacabkeenii awood dowladeed ku xasuuqay annaga kaasaan haysanaa waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo xasuuqii baydhabo aad ka geysatay oo ciidamada Itoobiyaanka aad u adeegsatay waa qaan qoorta kuu suran oo lagugu qisaasi doono haddii xilka dacwadaadina waxay taalaa maxkamadda dambiyada adduunka dacwadaada taalaa caalamka oo dhanana markhaati ka ah xasuuqii baydhabo aad ka fulisay adigoo adeegsanaya awood dowladeed waa tii ay soo saareen golaha ammaanka wax qarsoodi ah maahan maxamed cabdullaahi haddii aad xilka ka dhacdid iyo haddii aad haysidbo waxaa lagu balan ah in mataqaanaa maxkamadda dambiyada adduunka lagu horkeeno haddii aad dhibatidne in mataqaanaa owlaadaada laga gudi doono sababtoo ah ilmihii aad waalidkood iyo walaalahood laysay inay weeraxayeen ma mogtahay
ilmahagay ka gudayaan ilmihii aad mataqaana agoonsiisay aad agoontoomaysay ilmihii aad waalidiintooda xasuuqday aad baydhawr ku xasuuqday ilmihii aad waalidiintooda baydhawr ku xasuuqday inay weerarayaan ma mogtahay farmaajo ilmahagay ka gudayaan waa balan ilaahi haddaad nooshahayna waa qaan qoorta ku suran oo aanan kaaga hari doonin waa igu wallaahi inaan lagaaga haraynin inta aad dunida ku nooshahay qaantaan qoortay ku suran tahay maatadii aad baydhawr ku xasuuqday lagaaga hari maayo mukhtaar heesmadiisana hadday wax ku tarayso hayso waxaan leenahay kumanaan mukhtaar baan leenahay waxaan ku leeyahay kumanaan mukhtaar baan leenahay xasuuqii maatada baydhabo aad ku xasuuqday 13 ilaa 16 December ee 2018 waxaan ku leeyahay waa qaan qoorta ku suran farmaajo waa lagu qasaasaa ifka iyo aakhira ilaahay hortiisa qasaasay ku tahay ayaa ku yaalo ifka intaad ku nooshahay kaaga hari mayno haddii aad dhimatidna caruurtii aad agoomaysay inay weerarayaan ogow ay caruurtaada ka gudi doonaan wabilaahi tawfiiq inaan muxuu ahaa halkaan ugu faa'iidaysto maadaama aan nahay wakiiladiinii dawladda federaalka idinku metelaya wakiiladiinii federaalka idin joogo maadaama aan nahay waxaan rabnaa inaan halkaan idinku caddeeyo inaan muxuu ahaa marna raalli ka ahayn in muxuu ahaa wakiillo kale oo gobollo kale ka socda oo shaqo qaran naga dhaxayso ay ku soo xadgudbaan muxuu ahaa meeshaan idin metelaynay anaga oo joogna taas inaan aqbalaynin inaan idin sheegno madaxweynaha dawladda koonfur galbeed sanad guuradii koowaad khudbadiisii wuxuu uga hadlay arrimo toosin ah oo isxasuusina ayuu ka hadlay wuxuu sheegay in muxuu ahaa aysan fiicnayn in la isku gardaroodo dadka mucaaradka ah oo dawladda Soomaaliyeed ee naga dhaxaysa si uun uga soo horjeedo oo muxuu ahaa maamulkeeda diidan ha gardarnaadaan ama ha saxnaadaan markay wax sheegayaan annaga ma haysano ma caburinayno wixii dembi ah iyo gardaraha ay geystaan iyaga askale laakiin inay muxuu ahaa wadiiqada ama dariiqa ay u marayaan ay ka dhigtaan koonfur galbeed inaan la aqbali karin saxna ahayn maxaa yeelay reer koonfur galbeed waa lagu yaqaanaa muxuu ahaa inay yihiin dad dulqaad badan inay yihiin dad samir badan inay yihiin dad jecel waxooda inay ku filnaadaan aan ahayn dad gardaran oo raba inay xadgudbaan inaysan ahayn reer koonfur galbeed weligood dad kuma xadgudbin weligood dariskood kuma duulin weligood hal tuulo ah oo dad kale leeyihiin ma aadin weligood in lagu gardaroodo ma ogin ma gardaroonin gardaradana ma aqbalayaan way samreen way dulqaateen xuquuqdoodana inay muxuu ahaa ilaashadaan federaal hadday tahay iyo haddii muxuu ahaa maamul goboleed uu yahay way isku dhaarsadeen waynu isku og yihiin waana ka midaysan yihiin xildhibaan fududaaday oo muxuu ahaa wax aan shaqadiisa ahayn galay oo xadgudub sameeyey oo reer koonfur galbeed u gafay oo annaga aan isku shaqanahay anagoon u gafayn ku dayanayn kabihiisa gashanayn inaanan aqbalaynin waxyaabaha uu ku dhaqaaqay raaligelin ma dalbanayno waxaan idin caddaynayaa wakiiladiin haddaan nahay inaan sharciga noo yaalo ku xisaabtami doono oon baarlamaanka tegi doono xildhibaanka wuxuu sheegay magaciis ma raba inaan sheego waa wada garanaynaa waa fudaydkiisaa batay baarlamaankan ku wada jirnaa asxaabaan nahay waa isqadarinaynaa laakiin xadgudubkaan diidaynaa wuxuu yidhi shabaab buu beel ku shaabadayey shabaabna waa la og yahay waa nabaddiid waa argagixiso soomaali diid weeye nabaddiid weeye cid soomaali ah reer kasta ha ahaadaan oon muxuu ahaa dad ka xumaaday oo shabaab ka noqday ku jirinna ma jirto cid walba shabaabka waa ku jirtaa laakiin nin shabaab noqday nin Soomaali ah ama reer Soomaaliyeed
meel kasta ha joogaan aan u saarinayno ama aan ku eedaynayno ma jiro cid kale inay annaga shabaab noo saarisana kama aqbalayno oo dadkeena target garaysato oo dad aan waxba galabsanin muxuu ahaa oo shabaab shughul ku lahayn oo muwaadin Soomaali ah hadal nin mas'uul ah hadlay dhibaato ay u soo gaarto taas wax loo dul qaadan kara ma aha waan lagu xisaabtamayaa waxa kale oo jira mas'uuliyiin kale oo nin odaya ka mid yahay oo magac xisbi sheegtay marba magaciisa inaan sheego arrintiisa ku filan waxaan leeyahay taada kugu filan koonfur galbeed mal wadbo aad hadlaysid mitaal baad u soo qaadanaysaa walaalo waxaan leenahay iska daa kuma khusayso anaga joogno anaga matalayno dadkeedii baa joogo haddaan wax wada kala qabno iyo haddaan muxuu heshiisnahay anaga inoo taala xeer baan leenahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay dad isjecel baan nahay dhibaatada mar walba naga dhax abuuraysaan hadallidiina gefka waa nugu bateen waxaan leenahay naga joojiya wuxuu yiri culimadii aad isku haysata hadal baa ka soo fakanaya culimadii baa isku haysata waa laga iftooday taada kugu filan waxa lagu haystaa muxuu ahaa xuduud badeedkii baa lagu haystaa taada kugu filan walaalo waxaan ku leenahay adigana muxuu ahaa hadaad wax sheegaysid oo rabtid muxuu ahaa dadaas haysiin inaad la hadashid dariiq toosa u mar iyaga aad meeshay ka jiraan waa taqaanaa koonfur galbeed ha soo marin uurku taalooyin la hilmaamay laga heshiiyey qaarkood dhayid u baahan oo dad Soomaaliyeed burburka intuu jiray soo dhaxmaray oon ka gudubnay dadka xasuusinin annagu waxaan leenahay dib u heshiisiin baan Soomaali oo dhan ugu baaqaynaa nabad baan Soomaali oo dhan ugu baaqaynaa dawladnimo ugu baaqaynaa wada jir baan ugu baaqaynaa ma rabno gafaf iyo muxuu ahaa xad gudub iyo sadbursi